wafdigan saraakiisha ah uu hogaaminaya taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odawa Yuusuf Raage qaybna ay ka yihiin taliyaha qaybta guud ee booliiska Galmudug General Bishaar Abshir Geedi oo dhawaan xilkan loo soo magacaabay taliyaha ku-xigeenka qaybta 12aad gaashaan la aadan Siyaad Cabdi iyo taliyaha guutada 15aad ee qaybta 12aad General Mas'uud Maxamed Warsame oo safar shaqo ugu maqnaa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxa garoonka diyaaradaha Ugaas Nuur ee magaalada Dhuusamareeb ku soo dhaweeyay saraakiil sare oo ka mid yahay taliyaha qaybta 12aad General Cabdicasiis Cabdullaahi Cabdi Qooje taliska sare ee booliiska iyo nabad sugidda Galmudug xildhibaano iyo mas'uuliyiin kale taliyaha xoogga iyo saraakiisha la socota ayaa salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka qaranka oo garoonka ku sugnaa kuwaasi oo isugu jiray qaybaha kala duwan ee ciidamada saraakiisha ayaa intaasi kadib loo soo galbiyay magaalada Dhuusamareeb iyadoo ujeedka safarkoodani uu la xiriiro tayeynta howlaha ciidamada iyo dhamaystirka saanada ciidanka taliyaha xoogga ayaa la filayaa inuu kormeero maalmaha soo aadan xariyaha ciidamada isagoo dhiirigelin u sameyn doona cutubyo ciidamo ah oo loo carbiyay howlgallo la filayo in dhawaan laga bilaabo deegaanada al-shabaab ay ka joogaan gobolada Mudug iyo Galgaduud saraakiishan ayaa sidoo kale kulamo la qaadanaya saacadaha soo aadan madaxda dowlad goboleedka Galmudug si loo dardargeliyo howlaha ciidamada waxaana la filayaa in kulamadan ay dadajiyaan diyaar garowga socda ee lagu wajahayo deegaanada ay joogaan al-shabaab taliyaha qaybta booliiska Galmudug General Bishaar Abshir Geedi oo dhawaan xilkan loo soo magacaabay ayaa la filayaa inuu isna la wareego dhawaan hogaaminta qaybta booliiska Galmudug iyadoo booskaasi uu baneynayo taliyihii hore ee booliiska Galmudug ee dhawaan xilka laga qaaday